السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا ولا الله سوماليات halkan iga daawanaya meel walba waa joogtaan iyo sidoo muuqaalkaygu uu markaa idin soo gaariyaba. Muuqaalkan waxaan doonayaa inaan bal ku fiiriyo laba arrimood oo kala duwan isla markaasna ah laba qodob oo cusub oo aad iyo aad maxaa la yiraahdaa saameyn ugu leh dalka Soomaaliya iyo waliba dadka Soomaaliyeed. Qodobka ugu horeeya ee muuqaalkanagan waxaan rabaa in fiiriyo midowga Yurub oo xayiraad ku soo rogay baasaboorka Soomaaliya iyo waliba dalku galka la saaro ama fiisaha la saaro Yurub xataa noocyada diblomaasiga ah sababta xayiraadda loo saarayna waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diiday inay midowga Yurub kala shaqeyso si dadka qaxootiga ah ee Soomaaliyeed ee qaaradda Yurub jooga ee aan sharciyada haysanin dib loogu celin lahaa Soomaaliya maadaama Soomaaliya arrinta ay diiday waa sida iyagu ay sheegeen ay baasaboorkii Soomaaliya dalku galkii iyo waliba xayiraado xoog leh ay dusha u saareen madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo qalqal xoog leh ka qaaday arrintan ayaa meel kale isku qaaday Soomaaliyeed ee European Unionka iyo dadka Yurub jooga inaan u sheego maanaan diidin dadkeena ma diidin dalkaanay leeyihiin mana diidi karno waxaan isweydiinaynaa waxay tahay kaliya dadkaasi sida loo soo celinayaan su'aala ka qabnaa qof kasta oo midabkeennan leh muuqaalkeenna leh ee geeska Afrika ku nool ayaa Soomaalinimo isu dhiibay si uu u helo political asylum wuxuuna sheegay dadka Soomaaliyeed ee qaaradda Yurub ku galay Soomaalinimada inaysan dhammaantoodba ay Soomaali aysan ahayn cagsigeeda inay meelo kale ka yimaadeen meelaha xataa ay ka yimaadeen uu kala shaqayn karayo midowga Yurub inuu farta ugu fiiqo oo meelaha markaa la kala geeyo waa kala qaybintii Soomaalinimada ee Xasan uu caanka ku ahaa ayuu mar kale dib u soo celiyay wuxuuna qaaradda Yurub u sheegayaa in wiilka Soomaaliga ee Soomaali galbeed ka yimaado Soomaali ahayn kan ka yimaado NF inuu Soomaali ahayn kan Djibouti ka yimaado inuu Soomaali ahayn iyo sida la midka ah waana kala qaybin uu Xasan horay u damcay inuu mar sameeyo laakiin culays xoog leh uu kala kulmay bal arrinta waynu fiirin doonaa saameynta ka dhalan karta iyo sida lagu kala garan karayo qofka Soomaaliga iyo qofka aan Soomaaliga ahayn bal qaybta hore ayaynu ku fiirin doonaa qodobka labaad waxaan rabaa inaan ku fiiriyo hanjabaad weyn ayaa mar kale kooxda Xuutiyiinta ama kooxda Ansaarullah ka timaaday oo ku wajahan maamulka Somaliland waxayna kooxdan ay sheegtay inaysan aqbalaynin in Israa'iil ay soo degto Soomaaliya iyo waliba xogo cusub oo soo baxaya oo tilmaamaya in Cabdiraxmaan Ciro loo qodiyo godad dheer oo uga dhunto gantaalada laga cabsi qabo inay dhankaas iyo kooxda Xuutiyiinta ay ka yimaadaan qodobkana waynu fiirin doonaa soo dhawaada saaxiibyada meel walba joogtaan iyo sabab muuqaalkaygu markaa idin soo gaariyaba taariikhdu waa 26 Juun 2026 waana markii ugu horeysay oo maanta hawada ku kulmayno fadlan haddii muuqaalku idin soo gaaro muuqaalka like saara channelka isku xira si aad ula socotaan muuqaalada iyo wararka aynu halkan kusoo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walbaba aad ayaad mahadsantihiin haddii aan bilaabo midowga Yurub ayaa waxaa ka soo baxay go'aan la yaab leh waxayna xayiraad ama xanimaad ay saareen baasaboorka Soomaaliga ah inkastoo baasaboorka Soomaaliga ah aan muddadan dambaba lagu tagi karinin qaaradda Yurub haddana baasaboorka diblomaasiga ah ayaa aad loogu tagaa qaaradda Yurub marka ay dowladda Soomaaliya shir u tagayso Yurub marka ay mataqaanaa arrimo muhiim ay ka leeyihiin marka ay safar shaqo u tagayaan iyo arrimaha la midka waxay muddooyinka la soo dhaafay intii Xasan Sheekh Maxamuud meesha uu joogay aad loo tahriibiyay dad badan oo ku dhoofay baasaboorka Soomaaliga waliba nooca diblomaasiga ah ayaa waxay noqdeen kuwo lagu tahriibiyo dad oo markaas lacag tira badan looga qaato mar walba Xasan Sheekh Maxamuud uu xilka u yimaadana wadadaas waa wada markaas furmata si walba ha ahaato midowga Yurub ayaa restriction soo saaray waxayna bilaabeen in baasaboorka diblomaasiga ay restriction kala duwan ay saareen oo xilligii loogu talagalay in fiisaha lagu siiyo ka dheer in markaas lagu siinayo salahan oo kala diblomaasiga waxay inta lagu siin jiray fiisaha qaaradda Yurub ah ilaa 15 maalmood gudahooda laakiin hadda waxaa laga dhigay ilaa 45 maalmood waxaana loo sameeyay checkpointyo kala duwan oo la marinayo baasaboorka iyo cidda wadata iyo sababta loo baxayo iyo arrimahaas oo dhan marka waa tilaabo midowga Yurub ay culays ku saarayaan dowladda Soomaaliya maadaama ay ka cagajiiday meelaha qaar koodna ayba aqbashay in maxaa la yiraahdaa dadka aan sharciga haysan ee ku sugan qaaradda Yurub
dib loogu celiyo dalka Soomaaliya waxay Yurubiyaanku ay doonayaan dadka qaxootiga ku ah Jarmalka aan sharci haysan kuwa Sweden jooga kuwa Ingiriiska jooga iyo meelaha la midka ah ee ka rajo qaba wax sharciina dowladahaasi ay ka helaan in markaas dib loo xaqo Soomaaliya la geeyo dowladda Soomaaliyana way ka cagajiidaysaa sida ay sheegtay midowga Yurube marka halka ayay ka timaaday in la cinqaabo dowladda Soomaaliya wana sababta loo sheegay in baasaboorkii diblomaasiga ah iyo dowladda Soomaaliya culays xoog leh markaas loo saarayo si ay u aqbalaan ayaa qorshahan loo sameeyay miyay aqbali doonaan lama yaqaano laakiin madaxweynaha aan mandate-ka haysanin ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay ka hadlay dhacdadan laakiin qaabka uu ka hadlay ayaa waxay ahayd qaab runtii aan aad ula yaabay wana dabeecadu Xasan Sheekh Maxamuud caan ku yahay marka laga hadlayo kala gurka kala saarista dadka Soomaaliyeed waxaa jira laba shay oo aad la isugu qaldo mid waa Soomaalinimada midna waa dalka Soomaaliya dalka hadda loo yaqaan Soomaaliya ee 18 gobol ka kooban ee number 7ka u samaysan inta ku dhax nool oo kaliya malaha dad badan oo aan number 7kaasi ku dhax noolay ama jamhuuriyadda aan ku dhax noolayn ayaa Soomaali ah xuquuqna ku leh dalka Soomaaliya Soomaalidu waa qoomiyad dal haysata laakiin dalkoodii baa la kala googooyay qaar baa Itoobiya la raaciyay qaar baa Kenya la raaciyay qaar baa xor noqday oo Djibouti noqday intii kalena waa kuwa hata is haysta oo hata aan heshiin karinin arinta la yaab kale marka Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay waxay tahay afkiisa ka soo yeertay xalay waa in dad badan oo Soomaalinimo isku dhiibay aysan ba Soomaali ahayn qof kasta oo midabkeenan leh muuqaalkeena leh ee geeska Afrika ku nool ayaa Soomaalinimo isu dhiibay si uu u helo political asylum muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliya dalkaanay leeyihiin lama diidayo lamana diidi karo laakiin waxaan waaye arag u ahaynon u soo joognay dad la soo celiyay waa Soomaali la yiri markay inta yimaadeen inaanay Soomaali ahayn isla markaasna asagu diyaar u yahay inuu farta ku fiiqo kuwa aan Soomaaliga ahayn meelaha ay ka yimaadeen markaas la geeyo micnaheedu waa anaga idinku caawinayna meelihii aad geyn lahaydeen kuwaanu Soomaali ma ah way hadalkaas taasoo ka dhigan in wiil NFD ka yimaaday iyo wiil ka ama gabar ka timaaday Soomaali galbeed ama qof Djibouti ka yimaaday in la yiraahdo Soomaali ma ahane meelaha kale hal la geeyo wana hadal runtii la yaab leh muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliya ma yihiin waa soo qaadanayna haddii ayan ahayn meesha iyiina idin sheegaynaa la doonta inta aan isku haysano waa kayfiyada iyo sida loo keenayo laakiin maana diidin mana diidi karno Soomaalinimadu way ka guda ballaaran tahay jamhuuriyadda Soomaalinimadu ma aha mid Xasan Sheekh Maxamuud marti loogu yahay asagu uu bixiyo shahaadada yaa Soomaaliya ma ahan awoodaas asagu ma leh qof ka horeeyna ma lahayn asaguna ma lahan tusaale ahaan oo kale wiilka NFD jooga Soomaaliya wuxuu ka leeyahay waa Soomaali dhalay kan Soomaali galbeed jooga Soomaaliya wuxuu ka leeyahay waa Soomaali dhalay kan Djibouti ka yimaaday hadii caaw Soomaali yimaado waa Soomaali dhalay mana jirto cid kala guri karta ma jirto iska daa Xasane cid Ilaahay abuurtay oo Soomaali kala guri karta kama hadlay awood waxaan ka hadlayaa in la identify gareeyo in farta lagu fiiqo leeyahay qofkaanu Soomaaliga xamaan leeyahay lama samayn karo waayo waa dadkii oo isle iyo deegaamadii isku dhagan iyo qabiilkii iyo accentigii iyo wax walba is leeyihiin laba kala guri karay hadii caaw aniga Xuseen aan ka imaado Soomaali galbeed oo aan ka soo gudbo maxaa la yiraahdaa doolla iyo dhulkaasi caawan caabud waq ibaado ninka Soomaaliga ay oran karayo ninkan Soomaali ma waa ninkan accentiga reerkana aan ku hadlaya deegaanka reerkanagi baan ka imid meesha aan joogo waa reerkanagi luqad aan ku hadlayo waa luqadii maxaa la deegaankanagi cidda soo saari karta Xuseen ma ahan Soomaali iyo Xuseen Reebel ma waa cidde just an example midda kaliya ma aha kor ka soo bilow wiilka iyo gabadha Soomaaliga ah ee Samaroon iyo kuwa Ciise ama Djibouti ka yimaada ama Soomaali galbeed ka yimaadaan yaa caaw dhihi karayo Soomaali ma tiidin xasan uu garanaya haday yiraahdaan caaw Baki baan ka nimaanay haday yiraahdaan Boroman ka nimaanay cidda garan karta waa cidde luqadoodii bay ku hadlayaan accentkoodii bay ku hadlayaan luqadoodii bay waa reerkii nabadoonkoodii baa nabadoonka waa jifadoodii waa jifadoodii dix kala guri kara ayagaan iskala saari karinba cid kale iska daay marka waa qof dalkiisii dadkiisii dhex jooga lama kala guri karayo ka soo laabo
kuwa isxaq ee caawa yiraahda hargeysan ka nimaanay iyo kuwa Soomaali galbeed iyo hawd ka yimaaday yaa caawa kala saari karay waqti cida caawa kala saaris wacide yaa kala saari karay kan burca ka yimaaday kan Soomaali galbeed ka yimaaday xuduudda gudaha ka yimaaday dhulka hadda Etoobiyaanku ay haystaan yaa kala garan karay waa isku hal qof marna xagga daaqan marna xagga daaqande kan hargeysa jooga sidoo kale marna dhinac kale u daaqa marna hargeysa naftirkeedu isaga soo qayla taga yaa kala garan karay iska garan kartaa ma jirto soo soco kuwa maxaa la yiraahdaa harti iyo dhulbahante iyo warsangeli ee gudaha Soomaali galbeed degan iyo kuwa xuduudda ku taadsan yaa kala guri kara soo soco bajeerteen laylkase bareexaan habar gidir hawaadle cid walba oo Soomaaliyeed ba xuduuddan wax ka degan gudahana ku jirta ogaadeen yaa garan karaya inta ogaadeen ku isma xuduudda ay ka fogeen gudaha ku jiraan hadal wiilka ogaadeen yaa ka garan karaya hadduu yiraahdo daxmar bankimt محلية أجا هباتري مالي how will you identify عيد كلام كرتا مجرد حسن قصيد عليه نك رئيس الوزراء هو إنتوا بيجرنا يسا سومالي قلبت بكونش هذا رئيس الوزراء وكي حمل يا ودي تكره إنه مدي ذكرته بس سومال عليه أما جيجي كيمو أما غرب الدهر كيمو أما قارسي وجير كيمو قفك الصومالي جا صومالي نمديسة عيدنا ما سو ساري كرتو عندنا ما بدلي كرتو marka sida uu xasan farta ugu fiiqayo Europeanka uu sheegayo waan u jaajuusayaa fartan ku fiiqayna iyo u sheegaynaa sida uu doonayo inuu u jaajuuso uu yiraahdo qofkan Soomaali ma ahna la soo celiyo sida bise qabiil baa lagu dhufanaya reer hebel Soomaali ma ahan reer hebel kala Soomaali ma ahan miyay ni waa very nasty waa wax laga yaqyaqsoodo in madaxweyne sheeganaya uu yiraahdo qofkan Soomaali ma aha iyo qofkan Soomaaliya Soomaalnimada uu ka dhigo xasan uu leey adeer baashaan dad adiga ka waaweyn ka fog ba wax ka bedeli way qofka Soomaaliya Soomaalnimada xaq buu leey meel walbood ku dhashay xataa ka Djibouti ku dhashay oo abiyoodii Djiboutianka yihiin baa Soomaalnimada laga xigin waa inka Djiboutiga de waa nin Soomaaliyeed qabiilada Soomaaliyeed darb uu galaya ciis uu galaya dhulkiisu imaanaya dadkiisu ka mid kaad wax ku sameey xaqan xuquuq buu ku leeyahay xaqan xuquuq buu ku leeyahay waa Soomaali dhalow maxaad ku sameyn kartaa kii diida Soomaalinimada sida hadda kuwan ku hayo Yuhuud arabnaa waa meesheed laakiin qofka Soomaaliga ah Soomaalinimada doonaya cid Soomaalinimada u diidi karto qofka asoo ka baxa asaga tago meesheed marka arinta waa arin la yaab leh waa fool xumo waana fadeexad uu xasan caan ku yahay dastuurka uu kaligi qortayna ee muranka badan uu ka jirayna sidaas oo kale ayuu ugu qoray in Soomaalida la kala guri doono ninkii ra'iisul wasaaraha uu ahaa Soomaali galbeed ku dhashayna waxa la yiri kismaayo ku dhashay waxaaniga ka xiniya badda oo ka macna badna anu caawdan ku dhalan la Soomaali galbeed wallahi oo billahi tallahi baan bedelin waan ku faani lahaa qofka Soomaali galbeed ka yimaada waxaan aaminsanahay dadka kale Soomaaliyeed inuu ka tayo badan yahay banaamsa awshidan Soomaali galbeed ku dhalan lahaa waxa asaga marka Xamsi midka la yiraahdo ka quality fiicna kana xiniya burna Cabdi Xaasho diiday inuu iska bedelo yiri Soomaali galbeed baan ku dhashay xasan oo ku hayo qofka Soomaali galbeed ku dhashay Soomaali ma noqon karayo ayuu ID ku qaatay Cabdi Xaasho oo public laga dhigay inuu Soomaali galbeed ku dhashay waxna laga bedeli karin laakiin Xamsi uu ka cararay يعني wuxuu arkaa xilka la siiyay wax asxaan loogu sameeyay buu arkaa Xamsi marka inta uma dhaafay mid kana marka qodobkaas waa qodob cusub lamana yaqaan sida dawladda teedu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud uu hormuudka u yahay uu kala guri doono dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada iyo sharci la'aanta ay ku haysato qaaradda Yurub lama garanayo kuwa la siin doono iyo sida uu kala guri doono lama yaqaan laakiin wixii ka soo baxay arki doona qodobka inta san ka oranaya qof kasta oo midabkeenan leh muuqaalkeena leh ee geeska Afrika ku nool ayaa Soomaalinimo isu dhiibay si uu u helo political asylum laakiin waxaan waayay arag u ahaynon u soo joognay dad la soo celiyay waa Soomaali la yiri markay inta yimaadeen inaanay Soomaali ahayn war aan hubinno dadkan Soomaali ma yihiin muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliya ma yihiin waa soo qaadanayna haddii ayan ahayn meesha yihiina idin sheegaynaa la doonta inta aan isku haysano waa kayfiyada iyo sida loo keenayo laakiin ma diidi karno qodobka labaad muuqaalka naga markii aynu fiirino kooxda Ansaarullah
loona yaqaano kooxda xuutiyiinta ayaa markaa fariin culus oo weliba hanjabaad ah u soo diray maamulka goonigosadka ee Somaliland hogaamiyaha kooxdan Cabdimaalik Al-Xuud ninka la yiraahdo oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu soo diray mid ka mid ah fariimihiisii ugu adkaa intii Israa'iil dhaqdhaqaaq ka waday gobolka waqooyi galbeed ee Soomaaliya oo agaga Berbera iyo Hargeysa agaga intii dhaqdhaqaaq ka waday fariintii ugu cuslayd oo soo diro ayuu ninkan uu soo diray wuxuu ninkan uu sheegay ma sugi doono inta cadowga Israa'iil ay degayaan Soomaaliya waana ka hortageynaa ayuu yiri hogaamiyaha ruuxiga ee kooxda Ansaarullah Cabdimaalik Al-Xuud hadalka ayuu markaa soo mariyay warbaahinada waaweyn ee waliba luqadda afka Carabiga ku hadla iyo kuwa kale ee la xulufada ah kooxda Ansaarullah sida warbaahinada dalka Iran ayaa aad u faafinayay saacadii hadda la soo dhaafay hanjabaadda ninkan hogaanka u ah kooxdan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Cabdiraxmaan Ciro uu shalay ku soo laabtay Hargeysa muddo badan oo Israa'iil uu jiray kadib ay ku soo aadaysaa waxa sidoo kale soo baxaya xoga madax bannaan oo ay sheegayaan dhinacyo lagu kalsoon yahay in Israa'iil ay ka shaqeynayso inay Ciro u qodo bankar dhulka hoostiisa ah oo looga dhuumanayo gantaalada laga cabsi qaba inay ka yimaadaan dhanka kooxda xuutiyiinta haddii dhaqdhaqaaqa Israa'iil uu markaasi sii cuslaado ama haddii ay arkaan inay meelahaasi ay shaqo ka wadaan oo kale weerarada laga cabsi qaba kooxdan inay ka yimaadaan ayuu Cabdiraxmaan Ciro xilligan ka qodanaya bankaro kala duwan waxyaalihi aynu muddooyinka hadda la soo dhaafay oo dhan aynu ka warramaynay ayaa iyagiyo practical hadda ina hor yaalaan mar haddaad maqasho bankar baa la qodanayaa iyo cabsi baa jirta iyo xuutiyiintii baa soo hanjabay waxa ku xiga inuu arki doono waxaa weeye waa waxaanan horay gudaha dalka Soomaaliya aan loogu arag iyo gantaalla aan la aqoonin halka laga soo ridayo iyo cidda soo ridaysa ka colaadii bariga dhexe colaadii Iran colaadii Israa'iil iyo maxaa la yiraahdaa iyo kooxaha taageersan Iran weeye kuwa loo soo waariday Hargeysa iyo waliba magaalada Berbera markaysan haddii marka Cabdiraxmaan uu qodanayo bankaro which I don't know sida ay bankaradaas u bixinayaane kolow kuwii banaanka joogay ee Israa'iil u buraanburayay ee banaanka ayagu dhoobnaa ayagu maxay xaaladoodu ay noqon doontaa maalinkaasi sidoo inta qayliyaan oran doonaan Ciro ciidanka fasax diyaaradaha wax gumaada fasax miyay oran doonaan colaadii intii ay socotay Laascaanood waxyaalihi aynu baranay dadka naga koonfurta ka yimid ayaa waxaa ka mid ahaa sida faham ahaan aqoon ahaan macluumaad yarida haysa dadka Hargeysa jooga ee maamulka taageersan waxay aaminsanaayeen ka hor colaadii Laascaanood in maamulka Hargeysa ka jira uu hayso diyaarado waaweyn wax duqaya gantaalo wax burburiya hatta nuclear I believe inay aaminsanaayeen before wixii ka horreeyay colaadii Laascaanood ka jirtay which wiilka yar ee meesha ugu dambaysa koonfurta jooga uu xogta yar ee simbalka ah uu hayo dadka shacabka marka uu qabsado maamul dhinac walba ka dhibaateeya brainwash gareeya sidii qofka bini aadamka si aan ahayn u fakiro cadiifad ay qalbigiisa aragtidiisu laga dhex buuxiyo hatta waxyaalaha simbalka ah qofku faham dhab ah kama qaadanayo faham qaldan ka qaadanaya si walba ha ahaato lama yaqaano sida dadkan shacabka ah iyo xaaladoodu ay noqon doonto haddii colaadda la soo waaridayo ay ka qaraxdo waqooyiga Soomaaliya waliba gobolka waqooyi galbeed wiiga gobolka hadda targetka ah oo nimankaanu ay galaangalka ku leeyihiin waa Israa'iil ee maamulkaana uu ku soo jiidayo kooxda xuutiyiintu goormay weerar qaadi doontaa maxay samayn doontaa waxyaalaha oo dhan waxyaalo uu waqtigu uu ka jawaabi doono oo aynu isha ku hayno laakiin waxaan oran karayaa waxaynu dhexda ka taaganahay waxaynu marqaati ka nahay in meeshaasi laga dhigay ama lagu soo jiiday colaadii ka socotay bariga dhexe wixii ka soo baxa isa arrimaha ay u dhacaana waynu arki doonaa intaasaan muuqaalkan ku soo koobay bal waxyaalihii dambe oo ka soo kordha bariga dhexe gudaha dalka Soomaaliya iyo barnaamijyadeennii bal muuqaaladan dambe ayaynu ku fiirin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.